qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ma kor ayay u soo kacayeen mise hoos ayay u dhacayeen aan isbarbardhig ku sameeyno labadii sano ee la soo dhaafay ee 2018 iyo 2019 waxaan ku bilaabi doonaa inta qarax ee ka dhacay magaalada Muqdisho labadaasi sano kadibna waxaan soo noqon doonaa dhacdooyinka guud 2018 bishii koobaad waxaa dhacay 8 qarax 2019 waxaa dhacay hal qarax 2018 bishii labaad waxaa dhacay 5 qarax 2019 waxaa dhacay hal qarax 2018 bishii saddexaad waxaa dhacay 6 qarax 2019 waxaa dhacay hal qarax 2018 bishii afraad waxaa dhacay 4 qarax 2019 waxaa dhacay 2 qarax 2018 bishii shanaad waxaa dhacay 3 qarax 2019 5 qarax 2018 bishii lixaad waxaa wax qarax ma dhicin 2019 2 qarax 2018 bishii toddobaad waxaa dhacay 2 qarax 2019 hal qarax 2018 bishii sideedaad waxaa dhacay 2 qarax 2019 wax qarax ma dhicin 2018 bishii sagaalaad waxaa dhacay 3 qarax 2019 hal qarax 2018 bishii tobnaad waxaa dhacay hal qarax 2019 wax qarax ma dhicin 2018 bishii 11aad waxaa dhacay 2 qarax 2019 wax qarax ma dhicin 2018 bishii 12aad waxaa dhacay 2 qarax 2019 waxaa dhacay hal qarax guud ahaan qaraxyada baabuurta loo adeegsaday ee 2018 waa 38 qarax 2019 waxaa dhacay 15 qarax intaasi waxay ahaayeen qaraxyadii guud ee loo adeegsaday baabuurta haddaba dhacdooyinka guud ee qaraxyada iyo isugu jira toogashooyinka 2018 waxay ahaayeen 449 2019 186 dhimashada guud ee 2018 waxay ahayd 597 dhimashada guud ee 2019 waxay ahayd 220 dhaawaca guud ee 2018 waxa uu ahaa 429 halka dhaawaca guud ee 2019 uu ahaa 245 hoos u dhaca dhacdooyinka waa boqolkiiba 59 hoos u dhaca dhimashada waa boqolkiiba 69 hoos u dhaca dhaawacana waa boqolkiiba 42.9 intii aan askarta la diiwaan gelin ama faraha laga qaadin waxaa qornayd askar ay tiradoodu gaadhayso 30,000 oo askari cala askarina waxaa la siin jiray $100 taas oo isu geyn noqonaysa 3 milyan oo dollar oo gacanta laga siin jiray taliyayaasha waxaan ka codsanay in askari walba la diiwaan geliyo mushaarkiisa markii suulka gacanta loo saaray kadib loogu rido bangiga si toos ah markii askarta dib loo diiwaan geliyay oo faraha laga qaaday waxaa muuqoodii la waayay 13,000 oo askari waxaa halka ka soo baxday in la lunsan jiray lacag dhan 1 milyan iyo 300,000 oo dollar ciidamada qalabka sida dawladda Soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso 89 milyan oo dollar 2018 waxaan ku bixinay 102 milyan oo dollar 2019 waxaan rabnaa inaan ku bixino ugu yaraan 107 milyan oo dollar askari walba waxa uu dareemay in xuquuqdiisii uu si sax ah u helayo waajibka saarana uu si sax ah uga soo baxo sidoo kale waxa ciidamo tayeysan lagu soo tababaraa dalalka Turkiga, Djibouti, Qatar, Mareykanka, Eritrea, Uganda iyo Italy taasi oo sababtay hoos u dhaca dhibaatooyinkii Muqdisho ka dhici jiray marka la isbarbar dhigo labadii sano ee la soo dhaafay waxaad moodaa inay meesha ka maqan tahay kaalintii shacabka khaasatan ganacsatada ay kula shaqayn lahaayeen askarta si dadka looga badbaadiyo bahalaha caadaystay in ay ku qubaystaan dhiigga islaamka bixi cashuurta caawi askarta soo sheeg cadowga